dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay warqad dalka looga ereeyay ku-xigeenka wakiilka Midowga Afrika Simon Mlonga kadib markii lagu eedeeyay inuu gacanta kula jiro waxyaabo ka baxsan waajibaadkiisa shaqo ee howlgalka AMISOM. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa soo saartay warqad ay ku qoran tahay persona non grata oo la siiyo qofka aan dalka laga rabin. Simon Mlonga waxa uu dhashay dalka Uganda, waa diblomaasi sare, xubin hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dalka Uganda, sidoo kale waa aqoon-yahan ku takhasusay xiriirka caalamiga ah. waxa uu sidoo kale dalkiisa ka soo noqday la taliye sare oo arrimaha amniga iyo dhaqaalaha ah. warbaahinta dalka Uganda waxay ku warramayaan in Mr. Simon uu xubin firfircoon ka yahay xisbiga talada haya ee dowladda Uganda, waxaana la sheegaa inuu ka mid yahay saaxiibada madaxweyne Yoweri Museveni. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in mas'uulkan uu faraha kula jiray arrimo ka baxsan howlgalka ciidamada Midowga Afrika AMISOM oo saameyn ku yeelan kara istiraatiijiyadda amniga qaranka, balse dowladdu ma aysan shaacin waxa uu ku howlanaa ee ka baxsanaa howlgalka AMISOM islamarkaana saameyn kara ammaanka Soomaaliya. xog aan ka helay madaxtooyada Soomaaliya iyo taliska gaashaandhigga dalka ayaa ii sheegay in Simon ceerintiisa ay salka ku hayso khilaaf muddooyinkii ugu dambeeyey u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo golaha ammaanka iyo nabadda ee Midowga Afrika. khilaafkaas ayaa salka ku haya joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxay ku doodaysaa in ay ciidanka AMISOM ka baxaan dalka, amniga dalkana lagu wareejiyo ciidamada qaranka, halka saraakiisha AMISOM iyo golaha ammaanka iyo nabadda ee Midowga Afrika ay ku doodayaan in howlgalka AMISOM la ballaariyo lagana beddelo magaca iyadoo la hoos geenayo qaramada midoobay. wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa 13 bishii hore waxay shaacisay inuu fashil ku soo dhammaaday shir u dhexeeya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, wafdi ka socday golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika, iyo saraakiil ka tirsaneed ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya. xog la hela ayaa tilmaamaysa in mas'uulka la eeriye uu waday olole xoog leh oo ku aadanaa in la ballaariyo howlgalka AMISOM islamarkaana ay sii joogaan ciidamada AMISOM ee hadda ku sugan, laakiin barnaamijkooda fulinta ammaanka Soomaaliya la hoosgeeyo qaramada midoobay. shirar badan ayuu ka sheegay sida la sheegay in ciidanka Soomaaliya aysan gaarin xilli ay la wareegaan ammaanka dalka, halka dowladda Soomaaliya ay iyadana waddo olole ay ammaanka dalka ula wareegayaan ciidamada qaranka. waa diblomaasiga labaad ee la siiyo warqadda persona non grata muddo 2 sano gudahood ah. bishii January ee sanadkii 2019 ayaa sidaan oo kale dalka waxaa laga eriyey wakiilkii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya, Ambassador Nicholas Haysom, kadib markii uu ka hadlay dadkii bannaanbaxa ka dhigaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaas oo ciidamada dowladda ay laayeen. dadkaas oo diidanaa xergisha Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo ka mid ah murashaxiintii madaxweyne ee Koonfur Galbeed.